mahadsanid daawadayaal iminkana waxaad ku soo dhawaataan wararka bariga dhexe iyo caalamka oo alaaba idinka yimaada maalin kastoo jimco ah bariga Sacuudi Arabiya waxaan idin daadihiyaa anigoo ah Cawil Cagaare wararka bariga dhexe iyo caalamkana waxa ugu waaweyn اولا بمعاقبة محمد حسني السيد مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات. maxkamad ku taala dalka Masar ayaa 3 sano oo xarig ah ku xukuntay madaxweynihii hore dalka Masar Hosni Mubarak kadib markii lagu helay dambi ah inuu si xun u isticmaalay hantida qaranka. laba wiil uu dhalay Mubarak ayaa iyaguna lagu xukumay midkiiba 4 sano oo xarig ah kadib markii iyagana lagu helay isla dambigaas lunsashada hantida qaranka. labada wiil ayaa kala ah Jamal Mohammed Hosni iyo Alam Mohammed Hosni. maxkamadda ayaa Mubarak iyo wiilasha uu ku heshay in malaayiin dollar oo loogu talagalay in lagu dayactiro xafiisyada madaxtooyada ay u adeegsadeen dayactirka guryahooda lagu raaxaysto. waxa kale oo saddexdooda lagu xukumay ganaax dhan 3 milyan oo dollar iyadoo sidoo kale lagu amray inay khasnada dawladda u celiyaan lacag ku dhow 18 milyan oo dollar. kiiskan ayaa kamid ah 2 kiis oo ka dhan ah Mubarak oo talada lagaga tuuray sanadkii 2011. wararka ka imaanaya Liibiya ayaa sheegaya in dad ay ku dhinteen dagaal ka dhacay magaalada Benghazi ay gaadhayaan in ka badan 70 ruux. militariga Liibiya ayaa ku dhawaaqay in diyaaradaha aysan dul mari karin magaalada Benghazi. afhayeenka baarlamaanka ayaa sheegay in ninka hogaaminaya dagaalka Khalifa Haftar uu isku dayayo inuu rido dawladda. Master Haftar ayaa sheegay inuu sii wadi doono ololihiisa la dagaalanka waxa uu yeedhay argagixisada si uu uga saaro magaalada Benghazi. wuxuuna sheegay inuu taageero ka haysto dadka reer Benghazi. dad badan ayaa ka qaxaya galbeedka magaalada taasoo noqotay meesha ay ku dagaalamayaan maleeshiyad islaamiyiin ah iyo ciidamada uu hogaaminayo Master Haftar. dhanka kale maxkamadda dambiyada dagaalka ee lagu magacaabo Hague ayaa iyaduna diiday in Saiful Islam lagu maxkamadeeyo gudaha dalka Liibiya. Liibiya ayaa codsatay in Saiful Islam Qadaafi maxkamadiisu ay noqoto Liibiya dambiyada dagaal oo lagu eedeeyay xilligii uu socday kacdoonkii lagaga soo horjeeday dawladii Qadaafi ee kaligii taliska ahaa 2011. guddi ka kooban 5 xubnood oo ka tirsan maxkamadda caalamiga ayaa cadeeyay maxkamadda ah diidmada ay diideen codsi dawladda Liibiya ay u soo bandhigtay maxkamadda ka oo ahaa in maxkamadda Saiful Islam laga dhigo dalka Liibiya. dawladda Liibiya ayaa weli ku adkaysanaysa in aysan wareejin doonin Saiful Islam oo ay iyagu xaq u leeyihiin in ay dacwadiisu ka dhacdo gudaha dalka Liibiya. Saiful Islam ayaa ah 41 jir ku jira xabsiga kooxaha mucaaradka ee soo qabtay xilligii ay dhacday dawladii hogaaminayay aabihiis. maxkamadda Hague ayaa lagu eedeeyay in kaliya lagu maxkamadeeyo hogaamiyaasha Afrika iyo Carabta waxaana weli la sheegin cid ka tirsan reer galbeedka oo maxkamadaas la soo taagay. in ka badan 28 qof ayaa ku dhintay mowjado qaraxyo ah oo loo adeegsaday baabuur meelaha ay ku badan yihiin dadka Shiicada ee magaalada Baghdad. weerarkan ayaa dhacay xilli ay dadka Shiicada ay u dabaaldegayeen dhalashada Imaam Ali bin Abi Talib. Shiicada ayaa intooda badan waxay aad u weyneeyaan dhalashada asxaabiga weyn ee Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. saraakiisha booliiska ah ayaa sheegay qarax lala beegsaday magaalada Sadri oo u dhow magaalada Baghdad. qaraxaas ayaa la sheegay in ay ku dhinteen 4 qof sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 6 kale oo qof. subaxnimadii hore ee maanta qarax kale ayaa isna ka dhacay isla magaalada Sadri waxaana ku dhintay 2 qof oo kale waxaana ku dhaawacmay 7 qof oo rayid ah. qarax gaari oo kale ayaa goordhaweed isaguna ka dhacay bariga magaalada Baghdad ee degmada Jamila oo meel wada ah waxaana ku dhintay 3 qof waxaana ku dhaawacmay ilaa 11 kale. booliiska dalka Ciraaq ayaa sheegay in sidoo kale ay maanta dalka Ciraaq ka dhaceen 6 qarax oo kale kuwaas oo ay ku dhinteen 18 qof sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 53 qof. qaraxyadan ayaa lala beegsanaya intooda badan magaalada Baghdad gaar ahaan meelaha ay ku badan yihiin dadka Shiicada ah. dhammaan qaraxyadan ayaa loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyay. weerar lagu qaaday madaxtooyada Yemen ee Sanca iyo askar ku dhimatay. ugu yaraan 4 askar ayaa ku dhintay dagaal ka dhacay qasriga madaxtooyada ee dawladda Yemen ee magaalada Sanca horteeda. dagaalkaas oo ay soo qaadeen dablay hubaysan. askari ka tirsan ciidamada ammaanka dawladda Yemen ayaa warbaahinta u sheegay in ay weerarkan ay soo qaadeen niman hubaysan kuwaas oo watay gaadhay waxaanay damacsanayeen inay xoog ku soo galaan dayrka qasriga madaxtooyada Yemen ee magaalada madaxda dalkaas ee Sanca. wararka kale
ayaa sheegay in qarax laga maqlay dhismayaasha u dhow goobta dagaalku ka dhacay kaas oo loo adeegsaday ciidamada ammaanka. mid ka mid ah dadka goobjoogayaal ah ayaa sheegay in ay maqlayeen dhawaaqa hubka culculus oo la isku adeegsanayo muddo hal saaca ku dhow kaas oo dhex maray ciidamada ilaalada qasriga madaxtooyada Yemen iyo dableydii hubaysneed ee soo weerartay. weerarkan lagu bartilmaameedsanayay madaxtooyada Yemen ayaa la aaminsan yahay inuu ka dhashay kadib markii ciidamada militariga Yemen ay bariyahan dambe wadeen olole ay dalka kaga safaynayaan maleeshiyadka hubaysan ee taabacsan al-Qaacida. musiibadii ka dhacday magaalada Soma ee ay ku dhinteen in ka badan 300 oo ruux ayaa ka mid ahaa shaqaalihii u shaqeynayay shirkadda macdanta qoda ayaa joornaalada Turkiga ka soo baxa waxay ka shifeen in musiibada ka dhacday ay ku tuhmayaan inuu maleegay mulkiilaha shirkadda oo lagu magacaabo Mahir Safrana. ninkan iska lahaa shirkadda macdanta baarta ee 300 ee Turkiga ay ku dhinteen ayaa asal ahaan u dhashay Yuhuudda Turkiga waxaana lagu tuhmayaa inuu arintan musiibada magaalada Soma ka dhacday inuu weyn ku leeyahay ayna u badan tahay inuu sirdoonka Israa'iil ee lagu magacaabo Mossad ay ku leeyihiin shirqoolkaas. musiibadan ayaa looga dal lahaa ayay leeyihiin joornaalada kadib markii marar badan lagu guuldareystay in ra'iisul wasaaraha Erdogan in shacabka lagu kiciyo markaana loo soo amray musiibada gudaha Turkiga lagu dilo dad fara badan si ay shacabka ugu kacaan ra'iisul wasaaraha Erdogan iyo xisbigiisa Akhwaan Muslimiinka ee AKP oo laguna haysto maxaad horumar u gaarsiinaysaan Turkiga iyo wadamada caalamka islaamka. mulkiilaha shirkadda macdanta qode ay ku dhinteen in ka badan 300 oo ruux Mr. Mahir Safrana ayaa hadda ku xidhan xabsiga ku yaala magaalada musiibadu ay ka dhacday ee Soma si su'aalo loo weydiiyo qaabka ay korontada uga kacday gudaha dhulka hoostiisa ku yaala ee macdanta laga qodi jiray ee ay ku naf waayeen 300 oo ruux oo shaqaalihii Turkiga ahaa. wararkan ka helayno xabsiyada dalka Malaysia ayaa sheegaya in ay soo buuxdhaafiyeen dad muslimiin ah oo aan waxba galabsan kuwaas oo ka soo hijrooday dalalkooda kadib markii ay la kulmeen cadaadis fara badan oo uga imaanaya dawladaha ay ka soo hijroodeen ee ka taliya dalkaas. dhibaatooyin kala duwan ayaa ku dhacaya muslimiinta caalamka kuwaas oo isugu jira dil, xabsi iyo barakicin. muslimiintan ayaa miciin bida inay u soo hijroodaan dalalka magaca muslimka ah balse ay xaqiijiyeen danaha cadowga muslimiin ka soo cararay guryahoodii ay cadowgu eryanayaan waxaa lagu abaalguday xabsi meesha ay ka filanayeen in lagu soo dhaweeyo walaaltinimo. waxaa uga soo baxday cadow aan wax badan dhaamin kii ay ka soo carareen. dawladda lagu dhibaateeyay muslimiinta ay ka soo hijroodeen ayaa ka mid ah dalalka Afrikada Dhexe, Nigeria, Hindiya, Shiinaha, Masar, Suuriya, Chad, Ethiopia. halkaas waxay inoogu dhamaaday wararka bariga dhexe ee caalamka. waanigoo ah Cawil Cagaare iminkana idinku duwo studio hayaga dhexe.